maalmahan waxaynu aad u maqalnaa xisbiyada mucaaridka ah oo dhow eray oo isku wada isticmaala waxaanu ka digaynaa waxaanu sheegaynaa waxaanu yeeri doonaa bal horta maxaynu isku haysanaa intaana doo digin bal harnaba laynine digiddu waa eray culuse waxaanu leeyahay horta maxaynu isku haynaa muuse aan isku madrasadnahay madrasadiisii ilaahiyo oo isaga horu sheego yiri waxaan ku jiraa madrasadda siilaayaan ku jiraa anigu kawan ka qalin jabiyay meel kale la yidran macalinka marka waxaan leeyahay madrasada hadiya jeeraale waa la isku soo gaadhaayo anna 10 sano ku jiray isna soo doono oran maayo uu ku saaqiday uu ku yara raago quraanka ku adkaado wali uu ku jira adduunyada waa kow dimuqraadiyaddana way ku cusub tahay xisbi mucaarida oo doorashada dib u dhiga oo kii xukunka hayay war doorashada aan gal marxaatiyeedna waa shalay waxaan kaloo waafaqsanaysay sharcigeenu farayo roolka uu leeyahay mucaaradku oo aad toosin mid caafimaad qabta hal yimaad tii un baan wadna caafimaadka qabtay oo toosinayna xaq baana u leeyahay shalayna roolkii aan waafaqsanaa u ahaa inaan madaxweynaha la shaqeeyo dalkayga dhiso horumariyo maantana waxay tahay inaan toosiyo waliba tiimkaygii baa wali joogay madaxweynahaygiyo sidaasaan waliba anigu waan is ururinaya murashaxa kulmiyana wuxuu idin leeyahay waartii horena waa igu diideen oo idinka Israaciil labada xisbad u dhigay tan maanta idinka yeeri ma yaadaad u taala mucaaradka ku biicaba shacabkana waa sheegna Muuse iimaaso haduu nasiibka adiga ku siiyay anigu carabka waan ka dhowrayaayo oran maayo dagaalkii sokeeyay adaa riday waxaan hadii nasiibku ku siiyay waqti dagaal sokeeyay dhacay oo aad ku dhamaysatay labadii sanadood nasiibkaaga iimaanso anigana ka suusi hadna ka suusi waa nasiib wuxuu ahaa wasiirkii ugu awoodda badnaa ee dhawalba wuxuu toociyay ee cid walba jiiray ee meelba ka booday ee waliba taariikhda siyaasadda isagoo awood aan loo dooran ku amal falaya oo ku cartamaya gabay meel la soo fadhiistay ee ummadii shacabkaydu wasiirka u ahaa gabay goodi faan hanjabaad iyo dhalasho isugu daray Muuse arkay shaqada hadalkayga damqay hadalka damqayna aan tilmaamo Yusuf Abdi Gaboobo oo ni saaxiibka aan booqanay baan ka hadlay waxaan kaloo ka hadlay dadka isdildilayay ee dhibaatada soo gaadhay abaarta wala loo gurmado dadkayni waa ka adaa xagga mas'uuliyadda iga sii xiga hadaan ku raado xaq baan kugu leeyahay ka isdildilaya iyo ka daciifka iyo ka buka iyo ka dhibaataysan aan dhibta ka saaro war macaab ay noqoto manaan filaynin aniyada Muuse isku madrasad baanu hayne inteedii isku madrasad ahayd inay yaadaan madaxweynaha baawarkiisa baa cid kale ku shaqaysanaysayo dadka kale aan ugu oran jiray bal taariikhdu waa yaabe isaga maanta caracalo hebel baa loo qaban waay iyo muddo wax loo qabtay iyo kulliyo muddo sarkaday waa fulintii ugu awoodda wadaasana Muuse waanu madaxweynaha ka tagay baawarkiina ku shaqayso baawarkii laftiisiina ku shaqayso madaxweynahana karaabada ayaan laga qaadin oo la oran awoodiisi baa cid kale ku shaqaysanaysa ee waxaan leeyahay waaba ku dhisayaa isagana Allah ku barakeeyay baawarka inuu ka tagay hadii bari lagu xamanayay agtiisa laakiinse baawarka madaxweynaha xukuma isaga la shaqeynay waan se ka nasiib badan hayo walaalow dhibtii aad geysatay baan dhaayna ummadna dhaawacaad bistay ka calaacas Muuse ugu dhaxirsi baan wixii ugu dhici jiray wadinka garanayay taad kaysta waa ayaama yar 6 bilood kaliya ka haray maama carabi yaro jirtay darabani waa banka washtakaan waa idilay markaasuu reerkii iga dheereeyo haddana si ashkatay waxaanu maqalnaa madaxda wadani oo tiraahda sabal baa la xuloo qaban waay dalkii dib baa loo hakraday ummadda kulmiya hakraday waxaan salee culimada islaamka mid kamid oo leeyahay Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ayaa wuxuu leeyahay maqaale cajiib oo leeyahay المسلم للمسلم كاليدين تغسل إحداهما الأخرى وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة مسلم ككلوحية هي لبدا قعمود وكله لبدا قعمود مد بيدقدا أما ما يدا مركي ما يدو وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة مر بانay suurtagal ahayn
إن وسخذ لغا نظيفيو gacantii kale ilaa binooci min al-qushun ilaa la xoqo lagu yara xijiyo marka hadii la idinku xijiyo oo la yara xoqo ma la jabin maaye weerara maahe